waxa uu ahaa safar dulicdiisu ahayd in telefishanka Home Cable uu si mugla u soo bandhigo taariikhda khayraadka dabiiciga ah iyo wax soo saarka iyo baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada Saylac oo kamid ah goobaha ugu taariikhda fog Geeska Afrika waxaana la degay taariikh lagu qiyaaso kumanaan sanadood ka hor haddaba barnaamijkani oo aan ugu magac darnay bandhiga iyo baahiyaha Saylac taasi oo aan uga jeednay inaanu ku soo aragno waxyaabaha ay ku faanaan dadka deegaankaasi Soomaalida kalena ay ku dhaataan iyo baahida ay qabaan dadka reer Saylac magaalada Saylac iyo magaalada Hargeysa waxay isu jiraan in ka badan 360 kilomitir waana jid rafa waxaana halkaasi gaari kara gaadiid awood leh oo kaliya adigoo ku xisaabtamaya buuraha waaweyn iyo dhulka kala duwan oo u dhaxeeya labadaasi magaalo markastoo aad ku sii dhawaato magaalada Saylac waxaad arkaysaa dhul kala duwan magaalada Saylac waxaa jira dhul cajiib oo ku wareegsan degmada waxaana kamid ah deegaanka loo yaqaan laba dhagadka oo wax biyo fadhiisin aad u ballaaran kaas oo ku fadhiya dhul baaxadiisu ay gaarayso ilaa 50 kilomitir halkaas oo gaadiidku ay dhex maraan marka ay qalasho waxaana lagu tilmaami karaa haro ama biyo fadhiisin weyn oo aad looga warqabin Saylac waxaa soo maray boqortooyooyin kala duwan oo ay kamid ahaayeen boqortooyadii Awdal, boqortooyadii Ifaad, boqortooyada Cismaaniyiinta iyo boqortooyadii ugu dambeysay ee Ingiriiska. balse raadadka ugu badan iyo dhismayaashii dhaxalgalka ahaa waxaa ka tagay boqortooyadii Cismaaniyiinta oo halkaasi ka dhistay dekad iyo masaajidka ugu weyn uguna qadiimsanaa ee laga dhiso magaalada Saylac waxaana ku soo xiga boqortooyadii Ingiriiska oo iyada lafteeda ay sii muuqdaan xafiisyadii ay ku lahayd magaalada Saylac Maxamed Jaamac Raamaale waxa uu kamid yahay dadweynaha degmada Saylac waxaana uu nooga waramay waxa uu koog yahay taariikhda degmadaasi qadiimiga ah ee Saylac oo kamid ah magaalooyinka ugu facaweyn Geeska Afrika waxaana lagu qiyaasaa in la degay oo ay magaalowday kumanaan sanadood ka hor marka dhex joogto magaalada Saylac waxa indhahaagu ay qabanayaan dhismayaal qadiimiya oo aad garowsanayso in taariikhaha laga waramaya ay soo martay Saylac waxaana aad garan kartaa in meeshan ay kulmisay xadaarado kala duwan oo awood dhaqaale iyo awood cilmi iyo mid farsamo lahaa sababtoo ah dhismayaasha burburkoodu si muuqdo waxay ku muujinayaan in xilligaasi ay jirtay farsamooyin macna badan leh iyo naqshadaha aqoonta dhismuhu xilligaasi ay muujinaysay sidoo kale magaalada Saylac waxa ka soo degay qaar kamid ah saxaabadii rasuulka naxariisina nabadgelyo korkiisa ha noqotee kuwaas oo ka soo baxsaday dulmiga iyo cadaadiskii la saaray nabi Muhammad iyo asxaabtiisa iyadoo saxaabadii u soo hijrooday dhinaca Geeska Afrika ay ka soo degeen magaalada Saylac isla markaasina ay u gudbeen dhulka Ethiopia dhismayaasha qadiimiga ah ee Saylac ku yaala waxaa kamid ah masjidka qadiimiga ah ee loo yaqaan Qiblateynka sababta loo yiri Qiblateyn ayaa ah in masaajidkaasi uu lahaa laba qudbi oo mid kamidi uu u jeedo dhinaca qibladii hore ee Islaamka ee Baytul Qudus ku beegan balse markii dambe muslimiinta la amray inay u jeedsadaan dhinaca Makka ayaa masaajidka Saylac ay muslimiinta xilligaasi ay ku tukan jireen waxa masaajidkani ay u sameeyeen qiblo kale oo u jeeda dhinaca xaramka barakaysan ee Makka al-Mukarrama nasiib darro masaajidkani qadiimiga ah ee Qiblateynka ee taariikhda diimeed ee aadka u fog ka tarjumaya meherin qiimeyntii ka mudnaa dadka deegaanka iyo dawladaba waxaana ku dhacay burbur aad u ballaaran waxa hadda ka sii taagan oo kaliya qaybtii qudbiga intiisa kalena gabi ahaanba waa ay burburtay waqti xaadirkana ma muuqato dadaal lagu daba qaban karo inta raadkaasi ka hadhay ee masaajidkaasi ka sii muuqata waxaana aad dareemi kartaa in waqti dhow uu baabi'i karo dhammaan baraadkii dhisme ee masaajidkaasi Qiblateynka marka laga hadlayo Saylac iyo nawaaxigeeda bulshada ku dhaqani waxay taariikh ahaan lahaayeen ciyaar dhaqameed ay caan ku yihiin oo loo yaqaan ciyaarta Sayliciga waana ciyaar aad u facweyn oo la curiyay kumanaan sanadood ka hor
waxaana bilaabay oo ciyaari jiray dadkii kala duwanaa ee saylac ku noolaa qarniyadii la soo dhaafay. ciyaarta sayliciga ayaa waqti xaadirkani waxay ka mid tahay ciyaaraha ugu xiisaha badan ee laga yaqaan dhulka Soomaalida. degmada saylac waxay ahayd xarun ganacsi oo ballaaran taasoo quudin jirtay geeska Afrika marka laga hadlayo ganacsiga iyo wax isdhaafsiga, waxaana arrintaasi saldhig u ahaa lacagta ama waxyaabihii kale wax lagu kala iibsan jiray. waxaana noo suura gashay inaanu aragno qaar ka mid ah astaamo muujinaya qaybo ka mid ah lacagihii kala duwanaa ee ay wax ku kala iibsan jireen dadkii reer saylac ee ganacsiga isweydaarsan jiray, gaar ahaan boqortooyooyinkii saylac ka tarin jiray 180kii sano ee la soo dhaafay. waxaana gacanta ku haya raadadkaasi Idris oo ka mid ah dadweynaha magaalada Saylac. Sacaadadiin waxay ku taalaa duleedka waqooyi ee xeebta magaalada Saylac. jasiiradani Sacaadadiin waxay ka mid tahay ugu yaraan 6 jasiiradood oo isku dhowdhow oo dhammaantood waqooyi kaga beegan magaalada Saylac. hase yeeshee jasiiradda ugu weyn uguna quruxda badan waa Sacaadadiin. Sacaadadiin waxay ku fadhidaa dhul gaadhaya ilaa 8 kiiloomitir oo isku wareega, waxaana ay leedahay qaybo bannaan oo leh xeeb dheer oo lagu dabaaran karo, halka qaybaha kalena ay yihiin gacamo si qurux badan u dhex wareega jasiiradda. markaad dhex mushaaxayso jasiiraddaasi ayaa waxaa indhahaagu ay qabanayaan geedka loo yaqaano qandarka iyo mid kale oo loo yaqaano takhayda ee dacalka kula jira biyaha badda, isla markaasina quruxda iyo bilicda u gaara u sameeyay jasiiraddaasi Sacaadadiin. nawaaxiga jasiiradani Sacaadadiin iyo jasiiradaha kaleba waxay martigeliyaan oo ay hoy u yihiin kalluunka ugu badan xeebaha gacanka cadmeed, waayo deegaanbadeedkani xeebta Saylac waxaa ku badan dhagaxa loo yaqaano shacaabiga, kaasoo soo jiita kalluunka isla markaasina ugxanta u dhigta kalluunku iyo xitaa xayawaanada kale ee badda. taasina waxay soo jiidatay maraakiibta shisheeye ee xukuumadda Somaliland ay ka kiraysay inay halkaasi ka kalluumaystaan, waxaana ay ka yimaadaan wadamo kala duwan oo ay ka mid tahay waddanka Masar. kalluumaysatada xeebaha Saylac ayaa qaba cabashooyin ku saabsan inaanay haysanin kaabayaashii u sahli lahaa habka kalluumaysiga, isla markaasina maraakiibta kalluumaysiga ee shisheeyuhu iyo kuwa ka yimaada dalalka dariska ah ee Djibouti iyo Yemen ay kaga awood bataan xeeladaha kalluumaysiga ee ka jira degmada Saylac. haddii aanu dib ugu noqono magaalada Saylac, waqti xaadirkani waxaa ka muuqda koboc dhanka dhismaha ah oo intooda badan ay yihiin xafiisyada dawladda oo dhowaan xukuumadda Somaliland halkaasi ay ka hirgelisay. kaabayaasha waxbarashada ayaa si muuqata uga jira degmada, waxaana halkaasi ku yaala mid ka mid ah dugsiyada sare ee boardingka loo yaqaano amaba hoyga ah ee ardaydu ay u hoydaan, kaasoo ay wax ka bartaan arday ka timaada degmooyinka gobolka Salal uu ka kooban yahay. degmada Saylac marka aad joogto waxaad dareemi kartaa in adeegga biyuhu ay cidhiidhi yihiin, inkastoo ceelal cusub oo loo qoday in degmada laga waraabiyo, haddana waxaa dhibaato lagala kulmay qasabadaha biyaha ku soo xidhiidhiya ceelasha ilaa magaalada. caqabadahaasi oo ay ugu weyn tahay nooca qasabadaha la isticmaalay oo noqon waayo nooc ku habboon isla markaasina la jaan qaadi kara in lagu aaso ciidda xeebaha, una adkaysan kara waxa loo yaqaano jaanka oo ah daxalka iyo kuleelka lagu yaqaano xeebaha. sidaasina waxaa noo sheegay xogayaha fulinta ee dawladda hoose ee degmada. baraaraha ay leedahay degmada Saylac ee ay kaga duwan tahay degmooyinka kale ee Somaliland waxaa ka mid ah waxay leedahay wax soo saarka ugu ballaaran ee milixda ee deegaankani, waxaana ay ku yaalaan deegaanka loo yaqaan Toqoshi oo aan sidaas uga fogeyn degmada Saylac.
waa wax soo saar si farshaxanimo leh looga soo saaro milixda. wax soo saarka milixda ee deegaankaasi toqosho ka soo baxdana waxaa loo iibgeeyaa inta badan deegaanada Soomaalida. wax soo saarka milixdu waxa ay martaa marxalado kala duwan oo hadba midab ayay muujinayaan ceelashu. haddii aynu mid u sharaxno marxaladaha milixdu ay ku soo baxdo, marka koowaad dadka ka shaqeeya arrimaha milixda iyo wax soo saarkeedu waxa ay diyaariyaan godad dhererkoodu dhan yahay ilaa 3 mitir oo hoos u qodan. marka godadkaasi la diyaariyo kadib, iyadoo aan lagu shubin wax biyo ah, waxaa si dabiici ah u soo maaxa biyaha dhanaan ee badda. biyahaasi ayaa waxa halkaasi ay ku jiraan muddo ugu yaraan 1 bil. ugu dambeyn waxay noqdaan shay adag oo sida dhagaxa oo kale ah, taasoo ugu dambeyn laga soo qodo halkaasi. waana milixda caadiga ah ee aynu isticmaalno. wax soo saarka milixda ee deegaanka Toqoshi ee degmada Saylac waxaa ka howlgala shaqaale tiro badan oo muruqmaal ah, kuwaas oo ka xoogsada soo saarka milixda. daawadayaal ku soo dhawaada warbixin kooban aanu kaga hadlayno bandhiga taariikhda magaalada Boorama. magaalada Boorama waa caasimada labaad ee Soomaaliland, waana magaalada ugu weyn guud ahaan magaalooyinka gobolada galbeedka Soomaaliland, waxaana ay magaaladani ka mid tahay magaalooyinka kaalmaha hore kaga jira dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhan kasta oo laga eego, sida caafimaadka, waxbarashada iyo dhammaan adeegyada aasaasiga ah. dawladda Ingiriiska oo ay maxbiyad u ahayd Soomaaliland isla markaasna lagu magacaabi jiray British Somaliland Protectorate ayaa sanadkii 1919 waxay saamisay in dhulka maanta ay magaaladani Boorama ay ku taalo ay tahay dhul la deegi karo isla markaasna ku haboon in laga sameeyo magaalo. taariikhdu markay ahayd 1920 ayaa dhismihii ugu horeeyay laga bilaabay magaaladani Boorama, halka sanadkii 1925 magaalada Boorama ay xukuumadda British ku aqoonsatay degmo. ka hor intii aan la yeegleelin dhismaha magaaladani Boorama, waxa dadka reer Boorama magaalo u ahayd oo magaalada Saylac u soo labayn jirtay jaaraha horta oo ku taalo waqooyiga Dilac, qiyaastiina u jirtay ilaa 6 kiiloomitir. Boorama waa magaalo ganacsiyeed aad ugu dhow xuduudka kala qaybiyo Soomaaliland iyo dalka Itoobiya. magaalada Boorama waxa ay magaalada Hargeysa caasimada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u jirtaa 118 kiiloomitir oo dhinaca galbeedka ah. magaalada waxa ku wareegsan buuro halka ay kuwa kale dhexdeeda ku yaalaan. sidoo kale magaalada waxa ka jira tartan ganacsi kaasi oo kor u qaaday dhaqaalaha magaalada. marka laga yimaado dhinaca ganacsiga, waxa dakhliga ugu badan ee magaalada ka soo gala dhinaca wax soo saarka beeraha oo ay magaaladani Boorama caan ku tahay. marka aad dhex marayso wadooyinka halbowlaha ee magaalada Boorama, waxaad arkaysaa gaadiidka yaryar ee loo yaqaan bashaashta kaasi oo aad uga dhex shaqaynaya gudaha magaalada. mararka qaarna waxa ay mashquul galiyaan wadooyinka magaaladani Boorama. qof kasta oo maqla magaca magaalada Boorama waxa isla markiiba maskaxdiisa ku soo dhacaysa inay tahay magaalada aqoonta ee guud ahaan bagayga Soomaaliyeed, waxaana ay magaaladu ahayd magaalooyinkii laga bilaabay waxbarashada casriga ah guud ahaan bagayga Soomaaliyeed kadib dagaalkii labaad ee adduunka. dooxada Camuud oo ilaa 5 kiiloomitir magaalada dhinaca bariga kaga beegan ayaa waxay ahayd halkii laga bilaabay dugsigii hoose dhexe, markii dambena loo bedelay dugsigii sare ee Camuud. sanadkii 1997 ayaa ganacsatay aqoon-yahano reer Boorama waxay isla garteen inay dib u furaan dugsigii sare ee Camuud, balse waxa ay go'aan ku gaadheen inay ka dhigaan jaamacad. waqtigaasi oo aanay gebi ahaanba dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayna ka jirin wax jaamacadihii. madaxweynaha waqtigaasi talada dalka Soomaaliland ayaa Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ayaa waxa uu sanadkii 1998 uu xadhiga ka jaray jaamacadda Camuud. intaasi kadibna jaamacaddu waxay noqotay mid gebi ahaanba anfacda dadka, taasi oo looga yimaado dhammaan gobolada dalka Soomaaliya iyo Geeska Afrika. 20 sano ee ugu dambeeyay magaalada Boorama waxay sameeynaysay horumar dhinacyo badan ah. sidoo kale magaalada Boorama waa magaalada ugu qabow guud ahaan magaalooyinka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland.
maadaama ay ku hareeraysan yihiin buuro aad u tiro badan halka magaalada dhexdeedana ay ku yaalaan buuro kale dadka reer Somaliland waxay magaalada Boorama ugu yeedhaan magaaladii nabadda iyo horumarka waana magaaladii lagu qabtay shirweynihii lagu xoojinayay nabadda Somaliland sanadkii 1993 waxaana xusid mudan in magaalada Boorama ay tahay halkii lagu doortay Allah u naxariiste madaxweynihii labaad ee Somaliland marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal daawadayaal kastoon qoraal iyo hadal lagu soo koobi karin taariikhda faca weyn ee magaaladani Boorama ayaanu warbixintaasi kooban waxaanu ku eegaynay taariikhda magaalada Boorama waxaana idin soo codsiinaya anigu Axmed Cabdiraxmaan Daacada Thank you.